laakiin dadku waxay yidhahdaan xadaari maalmaha khamiisaha iyo jimcaha ayuu hudheerka istaagayo halkaas buu dharka ka soo guraa arrintaa maxaa ka jirta hudheerkan horta inta face mask xidhan hudheerka tagaa kadibna dhowr shay baan adigu si yar hoos ahaan u soo qaataa kadibna dadku markay weydiiyaan waa diyaarad keliya waddo iyo maxay baa laga keenaa ku dhaha adigu imika ilaa dadkii hudheerku iibinaya way barteen face mask baan ka xidhaa oo igu qaaliyayaa daawadayaal xaadirkan waxaa labadeeda garab fadhiya ninkan indho jacayl aad ugu caanbaxay magaca iyo xadaari geesi oo isna magaca isna aad caan ugu baxay bal xadaari geesi oo aan weydiiyo bal magaca naanaysta xadaari geesi halka uu ka yimi xadaari naanaystan xadaari geesi horta halkuu ka yimi magaca tayasrow su'aal fiican horta labada magac way kala dambeeyeen in muddo bay kala dambeeyeen magacayga hore xadaariyun buu ahaa xadaari geesina tiktok iyo social media baa la soo galay wallaahi adigu waxay ahayd un jiliin aan jili jiray anigoo dad dilaya anigoo maxay eryanaya waxaasuu baan geesinimo ula baxay xadaarina horaan usii haystay marka xadaariya geesina isku daray labadii magacaaba saasaa ku qaatay okay xadaari inta badan muuqaalada lagaa bartay aaladan tiktok waxa la is odhan karayaa waa muuqaalo maad iyo midadaalo inta badanna waxaad tishaa adiga oo ku matalaya dee nin dhalinyaro oo ereygan ay dadka Soomaalidu yaqaanaan dhaandhaankoo kale u yaqaanaan falcelinta inta badan kaaga soo noqota habjiliinkaagaas maxay tahay wallaahi falcelinta horta jiliinkayga iga soo noqota waxay horta nina iskama dhigo waxaanu ahayn jiliinkaygun baan la jeclaaday inaan dadka kaga qosliyo dharkanaan xidhanayo iyo sidaan aan u hadlayo waxaan jecel mar kasta inaan bulshada raali geliyo horta bulshada intooda ugu badan way igu taageertaa cid igu mudiciya ama igu diiday ma jirto qof kasta markaan waxaa soo sameynaa soo badi buu dhahdaa dharkaan xidhanayo oo laygu taageeraa adu wallaahi habjiliin cusubun baan da inaan samaystay aanu isku garanay laakiin dadku waxay yidhahdaan xadaari maalmaha khamiisaha iyo jimcaha ayuu hudheerka istaagayo halkaas buu dharka ka soo guraa arrintaa maxaa ka jirta arrintaa cidba ma ogeyn meeshaan dharka ka keenay anigaa isfashiliyey hudheerkan horta inta face mask xidhan hudheerka tagaa kadibna dhowr shay baan adigu si yar hoos ahaan u soo qaataa kadibna dadku markay weydiiyaan waa diyaarad keliya waddo iyo maxay baa laga keenaa ku dhaha adigu imika ilaa dadkii hudheerku iibinaya way barteen face mask baan ka xidhaa oo igu qaaliyayaa markay arkaan inaan xadaari ahay waxay soo odhanaya odaygu lacag buu hayaayo shay yara 50 la siinayo ka odhanaya ka toban keen gabadhii meesha horta xadaari wallaahi gabadhiiniyo waanan helay manaan helin gabadha way raadinayaa insha allah kulle way daawanaysaa waxaan leeyahay iskaan baan ku leeyahay oo raggan dimaashaadu noqotide ka soo hagaag okay haddana indho jacayl bal aan u gudagalo indho jacayl su-aashaan ku weydiinayo magacan indho jacayl xaguu ka yimid manin jacaylka aad wax uga yaqaana ayaa tahay oo hablo badan ay indhihiisa caashaqeen miyaa tahay bal su-aasha iga jawaab indho jacayl halkuu ka yimid walaal aad baad u mahadsantahay yaasir beej maadaama ku sugan nahay beejkaaga iyo magaca indho jacayl wuxuu ka yimid waa aan yaraa iminka indhihii way daaleen indho aad u fiican baan lahaa kadib waxaa dhacday gabadh jaarka ayuunbaa magacay u jirsadaa indho jacayl maxay sidan iyo sidaas adigu magacii sidii buu ku soo shacbaxay markii dambena baraha bulshada la soo galo saas ku soo baxay laakiin indho jacayl bal lays odhan karayaa indho waxa uu aad wax uga yaqaanaa arrimaha jacaylka maadaama inantaas iyaduba lafteeda indho weliba jacaylla u sii raacisay niyow arrimaha jacaylka jacayladan iyo xanuun badan wax waan ka yaqaanaa ma odhanayo waan wada yaqaanaa laakiin wax waan yaqaanaa inta hadhayna inaan sii bartaan jecel laakiin indho waxaa lagu arkayay adigoo oo maalmihii u dambeeyey dhinaca fanka u leexday aaladan tiktok miyaad kasii socotaayo ma fanka ayaad usii wada baydhaysaa mise labadaba waad isku wadaa iyo labadaba waan isku wadaa saaxiib weligaa haddii aad shaqaynayso meel keliya laguma koobnaa halkana ka xamaalo halkana ka xamaalo marka waxaan jecelahay inaan xirfado badan barto aan la meel maro tani haddii ay kuu suurtageli wado tan kale u gudub tan haddii suurtageli wado mid kale u gudub marka waan badinaa howlaha taliya okay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta u dambaysa eed u dirayso dhalinyarta kala duwan ee iyagu
jecel inay aaladan TikTok kusoo biiraan leh hibooyinka kala duwan rabana inay hibooyinkooda kusoo bandhigaan aaladan TikTok ma caqabada ayaa jira TikTok ka qabsanaya markay hibooyinkooda soo bandhigayaan mise ma jiraan wax caqabada niyow dhalinyarta kusoo biirsa tiktoka habliye inama haddii leeyihiin horta hablaha mid baan leeyahay hablaha waxaan leeyahay isaastura haddii aad talent leedihiin kusoo bandhiga laakiin jirkiina meelo kamid ah muujinina waalid baa idinka dambeeya walaalaa idinka dambeeya hadhow walaalkaa dee suuqa ma mari kari waa lagu dacdayna waa heblaayo walaalkeed baa la odhanayaa moogta marka markasta waxa qurux badan qofka talentigiisa keliya inuu kusoo bandhigo inamadana mid baan leeyahay xagga xun waxaa ka baranina balde dhinacii dhaqanka iyo diintii iyo sugaantiina balde kasoo bandhiga okay xadaarigiisa mar kale bogeygan yaasir cabdilaahi inaan kugu soo dhaweeyo maxay noqonaysaa dhalinyarta iyagu jecel inay hibooyinkooda TikTok kusoo bandhigaan fariintaad u diraysaa yasrow su'aal fiican dhalinyartan jiilka cusub annagaba jiil baa naga horreeyey inkastayna TikTok waagaa ku jirin jiilka cusub waxaan leeyahay TikTok soo geli doona inay horta mar walba aaladu waa saad u isticmaasho waxaan leeyahay xagga fiican aad u isticmaashaan aad mar walba wax qurux badan aad soo gudbisaan hablahana waa saa walaalkay sheego waa inay iyagoo asturan soo galaan ay talent haddii leeyihiinna wax fiican oo dee u qabsoomaya inaan ahaan ay la soo galaan oo ayna isruxin ayna isqaawin waayo waxaan horta waa aalad shaydaan wallaahi marmarka qaar markaan anigu isticmaalayo anigoo u qoondeeyey inaan waqti yar ku jiro ayaabaas arkaya anoo niyow ilaaweyba oo salaadii maqribiyatii cishaayaba lagaaga dulbaxaya wallaahi aaladan waxaan